kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada xubin kamid ah barnaamijka bandhiga Universal TV oo idinkaga imaanaya magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Maanta waxaan kusoo bandhigaynaa qaybta waxbarashada ee magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika. madrasada Umar Faruq macadka Miftaaxul Culuum iyo iskuulka Mayfair Academy maamulaheeda ayaa marti inoogu ah barnaamijka Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan kusoo dhawaadi Universal TV. inta aanan waraysiga u guda galin Maxamed Cabdiraxmaan Abubakar waa shakhsi kuma ah halkeebu ku dhashay bal taariikhdaada marka hore iyo heerkaada waxbarasho iyo barbaaridaadii bal marka ugu horeysa hal daqiiqo inoogu soo koob. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كل مقعي قواتساد مغشين ورياع الدروس ويدين هرماريي محمد عبد الرحمن أبو بكر ودنكي وحان كسو جيدا كينيا سوماليدا ماركتي كينيا كودالاتي بانهاي halkaas ayaana wax ku soo bartay qeybaha diiniyaadka iyo maadiga halkaas aan ku soo qaatay madrasooyinka waan soo marnay oo maaragtay ibtidaa'iga mutawassidka ilaa thanawiga baan maaragtay ku dhameystay iskuulka sidoo kale dhanka Northeastern waan maaragtay ayadana ka soo baxay primaryga secondary-ga dugsi sare waxaan ku dhameystay magaalada Mombasa xaafad Likoni la dhaho baan asagana high school-kayga ku soo dhameystay high school-ka kadib maaragtay qeybaha waxbarashada iyaan maaragtay training-keeda tababarkeeda soo qaatay Gaarisa aan ku soo qaatay maaragtay aan ka soo qaatay yaan nagu soo baray maaragtay college-keeda iyo qaabka waxbaritaanka halkaas aan ku soo qaatay kadibna wadankan oo South Africa baan maaragtay imaaday wadankan waxaan soo galay 2003 sanadka 2003 baan soo galay markaan soo galayna qaybna maaragtay kulay waxbarashada iyo diiniga iyo dhanka maadiga baan maaragtay laftiisa wax ka sii watay qaybana waxa isagana maaragtay waxaan u yar tafaruqay dacwiga maaragtay oo diiniga iyana iyadana maaragtay u tafaruqay kadib kulay adii shaqooyin iyo waxaan u soo maaragtay madax banaanaaday sanadka adii markuu 2006 iyo markay ahayd baan maaragtay u soo firaaqoobay oon bilaabay marka qaybahayga maaragtay waxbarashada oo dhanka wadankii sidaa bay ahayd professional ahaan maaragtay waxaan takhasus u leeyahay waxbarashada qaybta maaragtay waxbarashada ama ha noqoto maadiga ama maaragtay diiniga labada ha noqotee labadaba maaragtay takhasuskeeduna waa leeyahay. madrasada Umar Faruq oo marxalada kala duwan soo martay macadka Miftaaxul Culuum goorma ayaa la aasaasay sanadkee ayay ahayd yaa salaha aasaasida fikirkaas aasaskeeda madrasadu saad sheegtay waa run oo maaragtay maamul hore bay soo martay rag baa iiga horeeyay oo iyaga laftooda maaragtay hadda aasaasay marka iyadoo 12 arday baa maaragtay lagu aasaasay kadibna kulay marxalado kale bay soo martay iyadoo marka iska yar madrasadu baan kulay anaga maaragtay iyo aniga iyo wadaad kale hadda geeriyooday Allahu naxariisay baan maaragtay ku soo biirnay markaas aan maaragtay isbedel iyo qaabab kale baan maaragtay madrasadii qaabkeed u dhignay mar hore maaragtay waxay madrasadu iska yar farbar ah laakiin gadaal dambe baan maaragtay qaybo taxfiida iyo qaybihii farbarkii baan maaragtay u kala saarnay sanadka markuu maaragtay 2010 ahaa alxamdulillah barnaamijka markaan sameynay tiradii ardadii way kordhantay waxbarashadiina maaragtay tayaba yeelatay ilmihina waxay noqdeen qaybna way ku soo farbartaan qaybaha taxfiidkana maaragtay u soo gudbaan halkii bay marka quraankoodii ayagana maaragtay lagu saxaa oo quraankiina maaragtay ku bartaan intaas ay marka madrasada markeeda hore ku koobneed madrasada Umar Faruq 2004 sanadka 2004 yaa la aasaasay bilowgeedii magaca madrasada Umar Faruq yaa lahaa yaasa loogu magac daray madrasada waxa loogu magac daray Sheekh Umar Faruq Allahu naxariisay yaa loogu magac daray wadanka imaaday oo dhagax dhigay marka asagii baa marka loogu magac daray oo Sheekh Umar Faruq ay marka hore ahayd yaa loogu magac daray bilowgeedii hadda waxaad ka dhigteen madrasa lagu barto quraanka kariimka ah iyo macahad lagu barto
علومta sharciga islaamka oo magaciisa la yiraahdo miftaaxul ulum marka miftaaxul ulum muxuu qabtaa oo dadka muxuu baraa adrus kulay ilmaha waad ka garanaysaa marka ay maaragtay la farbaro oo quraanka taxfiidkana quraanka xifdiyaan qasab inta kuma koobno waxbarashadii qaybihii oo maaragtay diinigi oo la rabay maaragtay ilmihiina ay bartaan yaa meeshii laftiisa ka maqnaanaya marka caruurta hadii quraanka ay bartaan magaalada lagu sii daayo wax macno weyn ma keenayso quraankiina way hilmaamayaan quraankiina wuxuu iska noqonayaa wax la bartay oo la sii daayo maaragtay macaanidiisii iyo wixii maaragtay waxbarashadiisii kale iyo halkii ka maqan marka meesha waxaan markaa u sameeynay macadkan in ilmaha quraanka markay soo dhameeyaan meesha culumtii sharciga ay ka qaadanayeen inuu noqdo oo lagu baro si maaragtay fiqiga luqada carabiga xadiidka lagu baro cilmigaas oo maaragtay oo dhan maaragtay islamic studieski kale inay maaragtay ku bartaan marka waa meesha hadana ugu muhiimsan ardayga quraanka wuxuu iska baranaa soo qeyn gaarin laakiin markuu indhaha kala qaado wuxuu ku indha qaadi lahaa waxa weeyaan waa diintii iyo maaragtay shariicada barashadeedii marka macadkan wax qabadkiisa wuxuu yahay inay ilmaha maaragtay cilmiga sharciga ay maaragtay ku bartaan qaabkii nidaamkii oo xalaqaadkii ya maaragtay loo baraa hataa si muqarrarkii maaragtay madaarisan garanayna maaha waa ilmihiina kutub loo bilaabo ay kutubtii dhameeyaan sidii xalaqaadkii oo dhulkeena maaragtay aad ku arki jirtay oo masaajida laga akhrini jiray qaabkaas ay maaragtay culimada joogan ay maaragtay ku wadaan qaabkaas loo waxbaraa marka alxamdulillah sanadkan waxaan u maleeyaa macadka waa sanadka afraad hadda maraya ilmihii quraanka ka qalin jabiyay halka yaa madrasa Umar Faaruq ka baxay waa macadkaas hadana maaragtay lagu furay ayagii baa hadana maaragtay sanadkii afraad hadda maraya oo maaragtay dhowr maaragtay cilmigii kutubta hoos oo dhan maaragtay had way wada barteen alxamdulillah waa ilmaha hadda macallin ka noqon karaa maaragtay kutubtii laftooda akhrini karaan weeyaan ilmuhu qayb haween maaragtay gabdhana uu leeyahay qayb wiilna maaragtay waa ilaahay waa laba qayb gudbeen dumarka ama gabdhaha macallimiinta wax bara macallimiin rag ah ama macallimiin dumar ah waa isku jira horta macadku macallimiinta ka howlgasho oo wax barto waa 9 macallin laba waa maaragtay dumarka ah 7 waa rag marka intooda maaragtay waa maaragtay maadooyin ay ku leeyihiin cashirada ay ku leeyihiin qaybta gabdhahana ay ku leeyihiin qaybta wiilashana ay ku leeyihiin wadankan Koonfur Afrika oo aad ku noolnahay oo ardayda Soomaaliyeed wax ay ku bartaan dawladda Koonfur Afrika ma ka diiwaan gashan yihiin macadidiina iyo iskuulkiina iyo madrasada caqabadaha ma kala kulantaan dawladda iskuulkeena waa ka register gareysan yahay madaaristana si organization ahaan bay maaragtay u register gareysan yihiin iskuulka qasab waxa weeyaan department of education ka iskuulka inuu register ka yahay weeyaan hadduu register dhaheen waxa weeyaan waxbarashadu waxay ku xiran tahay department-ka imtixaanada halkaas ay ka imaadaan manaahijta halkaas ay ka imaadaan marka waxaan department-ka oo ka register gareysneen wax iska tuition mu noqon kara maahine wax waxbarashadii saxdii la rabay ma noqon karo marka dawladdu waan ka register gareysanaa alxamdulillah way imaadaan way controlaan way arkaan hataa reportka canuga la siinayo department-ku maaragtay naqshadii loo sameeyay uu maaragtay ka yimaada waxaad adiga iska sameeysan karto maha macallimiintu faylal bay leeyihiin oo macallinka say dawladda maaragtay kula xisaabtantaa supervisor ba imaadaan maada kasta iyo horumarkeedana maaragtay macallinkana waa lagu tababar badan oo free bay macallimiinta maaragtay siiyaan marka alxamdulillah dawladdu waa iskuulku waxay u tahay kaalma oo ka kaalmeynayso sidii maaragtay cunuga ku hormari lahaa وفعلا وحاويا امتحاناتك او دنبه او جريد 12 ka dawladdu ka yimaada waxa jira fasalla sidoo kale ayagana exit class la dhaho fasalka 3aad kamid fasalka 6aad kamid fasalka 9aad kamid toos imtixaanadooda wuxuu uga yimaada xaq dawladdu ka yimaada marka ninkan dawladdan department-ka ku xirneen oo registered schoolkiisa heen wixiisa hor uma soconi karo marka falillahi alhamd waan ka register gareysanahay qaybaha madrasadana sidoo kale ayagana kulley waxada dawladda loo sii hoos tago kale male laakiin inay tahay maaragtay waxbarasho jirto ayadana kulley kor way ka ogyihiin dawladdu marka laga soo tago midaasi iskuulkiina Mayfi Academy ardayda dhigata imisa ay gaarayaan goormaas la aasaasay Mayfi Academy aidrus kulley fikradii iskuulka way horeysay maaragtay ilmo waxa jireen Soomaalida inta badan say dabeecad u leedahay wad garanaysaa
meelaha gaalada ilaahay maaragtay hiba noo siiyay ka mid tahay gabdhaheena waan la baqnaa inaan maaragtay meelaha gaalada iyo meelaha sarwaalada lagu xirto iyo waxyaalaha inaan geyno waalidiinta inta badan way ku amaanan yihiin arrintaas waalidiinteena Soomaali marka dad badan waxaan aragnay gabdhaha guryaha ku haysto oo iskuulka u dirin dawladana waxay leedahay cunug kasta waa in iskuulku tago oo waxbarasho helo guriga lagu mahayn karo marka waalidiin waxay jireen fikrada lahaa oo maadaama madrasadii aan haynay inaan maadigina lagu daro marka barnaamij yar oo iska gaaban oo meel dheer lahayn oo ilmaha maaragtay lagu afbaray oo dawladina lagu tusinay maaragtay ilmihiina ay maaragtay shay maadi ay bartaan iyo marka hore iska ahaa magaciisana maaragtay Sayrek waan maaragtay u bixinay oo iskuulku ahaa marka in Soomaali oo kulay gabdha yar u badan oo iska maaragtay uu iska ahaa una iska tabaryara macallimiin professional maaragtay ma dhigi jirin luqadii baa lagu barbari jiray gadaal dambe laakiin maaragtay fikradii waxay la wanaagsanaatay inaan maaragtay iskuul Soomaalida inay u baahan tahay ii soo baxday markaas aan maaragtay ku fikiray inaan iskuul dhameystiran oo primary inaan sameeyno yaan marka hore aan ku fikiray fikirka kadib waxaan maaragtay tashi badan la sameeyay iskuulo fara badan oo wadanka ka dhisan oo na ka diiwaan gashan oo dadkii lana maaragtay badigooda ay foreign yihiin sida Zimbabwe iyo sida Uganda iskuulay leeyihiin aan ka qayb galay waan la fariistay fikrado badan aan la wadaagay waxay ii maaragtay igu tashjiiciyeen oo maaragtay igala hadleen inaan maaragtay community-ga loo sameyn karo iskuul madax bannaan oo ilmahoodina maaragtay si tarbiyeysan diintoodii iyo maaragtay libiskoodii dhan kasta iyagoo maaragtay waxoodu maaragtay say rabaan u wadan karaan inay waxbarashadoodina maaragtay maadigina loo sameyn karo saa marka arrintaas maaragtaan ka war helay waan maaragtay waalidiin fara badan aan araadooda aruuriyay waxay muuqatay iskuulkii maaragtay inaan sameyn karo markaas aan iskuulkii waxaan sameeyay yaan habeeyay qaybaha waxbarashada waan la xiriiray markaan la xiriiray condition badan oo maaragtay loo baahan in la buuxiyo baa ii direen arrimihii baan maaragtay isku day inaan soo buuxiyo markaan soo dhameystiray file dhan baad maaragtay buuxinaysaa diyaarinaysaa way iga jeegareen way arkeen marka waxay ugu dhaheen waad u qalantaa in iskuulkiina register laga dhigo markaasaan iskuulka advertise garaynay programyo fara badan baan u sameynay Soomaalida marka in badan baa ku soo jabtay Soomaalida kelima ah Soomaali baa dhigata Ethiopian baa dhigta Malawi baa dhigta dadka South African baa dhigta meel fog iskuulkiin looga imaaday noqotay capacity-giisa maaragtay waa weynaaday xaqi maaragtay ardaydii space-ki baa nagu yaraaday marka waqtiga hadda la joogo ilaa 700 iyo dhowr arday baa iskuulka dhigata marka magacii horena waan ka bedelnay iskuulka magaciisa waxa la Mayfair Academy oo xaafadan maaragtay degannahay baan maaragtay laftiisa ugu magac darnay alxamdulillah iskuulkana marka tira ahaan intaas dhigata quality wise markii la dhaho iyadana waxbarashadana waxaan filayaa iskuulaha aageena ku yaalo iskuul naga sarreeyo inuu jirin taana waxaan ku leeyahay maaragtay Isfaanin kama wade ardaydii iskoolada kale baa markasta inoo imaada oo damcaya maaragtay oo raba inay iskuulkii ka mid noqdaan laakiin fursad ma siini karno space-kii baa maaragtay nagu yar oo ma u hayno meelo maaragtay aan geyno waalidiin kamid ah sidoo kale noo imaada ayagana sidoo kale maaragtay iskuulkii aan kamid maaragtay noqono marka mustaqbalan insha Allah waxaan u raadinaynaa inaan maaragtay meel inta ka weyn aan iskuulkii geyno oo qorshe dhow maaragtay insha Allah ta'ala inoo ah taa markaan geynino waxa inoo sabab inoo sahal maaragtay fudeed inoo noqon doonta inaan ardaydaas dhamaan oon accommodate gareyno aan iskuulka maaragtay ka register gareyno insha Allah ta'ala waxaa jira arday laga keeno qurbaha wadamada Yurub Mareykan iyo Canada oo wax ka barta dalka Koonfur Afrika iskuulkiina Mayfair Academy waxaa jira arday ka yimid dalka Canada oo wax ka barta oo iskuulkiina arday ka ah ma jiraan arday kale oo ka timid Soomaaliya ama Kenya oo aqoontooda kor loogu qaado oo iskuulkiina dhigta koorse ma bixisaan oo si qofkii da'diisa ay ka koreysay xilligii loogu talagalay iskuulka dhigta ma jiraan arday ku soo biirtay iskuulkiina Mayfair Academy aad daruuso inaad kulay naga warhaysay aan u maleeyaa arrimahaas aad bay inoogu badan yihiin Soomaali ilmaha laga keenay ayagoo weyn oo luqadda Ingiriiska garanayeen da'doodina meeshii ay fadhiisan lahaayeen aan u qalmin baa inoo la keenaa ilmahaas oo kale ma aragto waxyaalahan u sameeyno waxa kamid ah
asagoon fasalka waxaa laga yaabaa ardaygii inuu fasal sare uu joogi lahaa waqtiga laakiin ay maaragtay dib u dhac badan ku imaaday marka fasalku waqtigaas u qalmo baan geynaa haddana waxaa loo sameeyaa tuition baa loo sameeyaa marka waxaa dhacdaa waxbarashadii fasal laba fasal inaan hal sano gudaheeda maaragtay ardayga ku siino soo meeshii la rabay maaragtay ardayga u gaaro marka intaas iyo ilmo badan oo maaragtay u sameynay oo hadda qaaran iskuulo kale u dirnay iyo qaar waxaa jiraan laftooda iskuulka hadda dhigta oo ayaga laftooda sida loo sameeyay oo waqtiyaha holiday-yada iskuulku xiran yahay oo kale wax baa la bara sabti iyo axad oo kale wax baa la bara iskuulka markii laga baxo ayagii wax baa la bara si loo kabo waqtigooda maaragtay soo dhaafeen oo loo gaarsiiyo levelkii oo arday kale maaragtay ay meeshii manaasib u ahayd loo gaarsiiyo marka qaabkaasna waa jirtaa qaabkaas aan u caawinaa ilmaha Soomaali laga keeno ayagana sidoo kale dibadahana de kulli way la qabsadaan markii la keeno ayadana orod bay maaragtay wala qabsan maaragtay waxbarashada iskuulka Cabdiraxmaan waxaad maamulo ka tahay laba madraso iyo iskuul oo arday aad u badan ay dhigtaan madrasada Umar Faaruq oo lagu barto Quraanka Kariimka ah macadkii Miftaaxul Culuum oo shariicadii iyo diinta Islaamka sidoo kale iskuulkii Mayfi Academy oo arday badan ay dhigtaan intaasi yaa idinka saacido oo ka Soomaali ahaan jariid Soomaaliyeed ardaydooda oo inta badan dhigtaan ma hay'ado xiriir ay leeyihiin ayaa jira mase ardayda qarashka ka qaadaan ayaad ku manage gareysaan macallimiinta wax ka dhigta intaas عادلو سوورتا مدرسة قيبتا تحفيدك iyo farta wiilasha dhigtaan tiradoodu 180 arday baa dhigata qaybihii gabdhahana waxa dhigtaan 175 iskuulkana waa saan ku hormariyay ilaa 700 dhowr baa dhigata qaybtii cilmigana ilaa 80 dhowr arday baa maaragtay dhigata inta markii la isku duduubo waa maaragtay tiro aad u fara badan goobahan wax ku barnona waad garan kartaa waa ilaa taqriiban 4 goobood bay maaragtay wax ku kala bartaan waxaan inta badan on gacan ka helnaa horta hay'adaha wadanka degan gacan waan ka helnaa waxa kalena maaragtay waxaan ilmaha lacagan saarnay oo waalidiinta la saaray waan iyadana ka kabnaa wixii maaragtay naga dhinaado qaabkaasaan markaa aan u howlgelinaa shaqada socodkeeda inkastoo meesha agoon badan dad badan maaragtay liita oo iska masaakiine oo waxba haysanin aan anageena bilaash maaragtay aan ku dhigta dhahna dadkan waxban maaragtay tabar yar oo waxban maaragtay hayin meesha bilaash ay ku dhigtaan waxba laga ma qaado oo fiina kama qaadno marka intii wax bixin karto way wixin maaragtay ka qaadno oo agoonna waxba looga ma qaado iskuul iyo marka la gaaro bisha Ramadaan oo sanad walba waxaan aragnaa iskuulka ama madrasada dad dan yar oo lagu caawiyo oo laga dhiibo xaqal Ramadaankoodii wixii ku soo milahaayeen marka arimahaasi ma iskuulkiina ayaa fangareeyo mise hay'ado ayaa idin soo mireeyo oo dadka Soomaalida dhibaataysan ku caawisan dalkani Koonfur Afrika Ramadaankii waa dadku iska khayr badan yihiin dadka muslimiinta khaasatan aan wadanka la deganahay iyo hay'adaha dhamaantooda iyo inta badan raashinka dadkan masaakiinta oo maaragtan soonka iyo waxyaalaha maaragtay uu ku culus yahay inay maaragtay afarkood iyo nidaamkooda u hagaago ku culus yahay waa inta badan ay hay'aduhu jecel yihiin inay garab siiyaan ay caawiyaan marka ilaa taqriiban sanad walba 1500 ka badan oo qoys baan raashin maaragtay lagu siiyaa oo annagana inoola soo mariya on maaragtay bulshada sidoo kale u gudbinaa khaasatan 90% Soomaalida yaa maaragtay raashinkaas la siiyaa oo bisha Ramadaan waa maaragtay lagu bixiyaa marmar sidoo kale dhar baa imaada oo qaboobaha kale maaragtay iyadana la siiyaa hoolaha soo dhan ayagana hay'adaha baa waxa alla wixii liito oo community oo dadkii dhaxdiisa yaan si khaas ah ayagana ogala shaqeynaa inay maaragtay garab ka siiyaan dadkan tawaaleysan oo tabarta yar inay maaragtay bal noloshooda kaafiyaan khaasatan waqtigaas Ramadaanka oo kale ah waxaan ku soo dhawaanay gabagabada barnaamijka marka laga hadlayo ardayda wax ka barata iskuulada dalka Koonfur Afrika ku yaala badana waxay ku hadlaan luqadda Ingiriiska ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata iskuulkiina Mayfi Academy intooda badani waxay ku hadlaan afka Soomaaliga oo markii bandhig sanadeedkii ardayda ay soo bandhigayeen dadkii ka qayb galay aad ay la dhaceen oo waxay arkayeen Soomaali arday Soomaaliyeed oo ku dhashay dalka Koonfur Afrika oo afka Soomaaliga tix ku tirinaya ama gabaya ama geeraaro isku weedarsanaya
waalidiinta hortooda bal arrinkaasi ku hadalka afka Soomaaliga sidee u suurta gashay arrinta alxamdulillah horta taa waxaa in badan suurta geliyay waa qeybahan madarasada oo ilmaha maaragtay quraankii higaadi af Soomaaliga maaragtay laftiisa ku baranayeen waana dhacda hadda tuulooyinka ilmaha laga keeno ayagoon af Soomaali garanayn baa noola keena halkan af Soomaaliga ay ku bartaan waxaa kaloo aragnay ilmo maaragtay wadankiiba nala degan hooyadii aabihiina Soomaaliye oo ilmahoodina kaasi waxa uu ahaa maamulaha madrasada Umar Faaruq ee macadka Miftaaxul Culuum ee iskuulka Mayfi Academic oo u waramayay barnaamijka bandhiga Universal TV oo idinkaga imaanaya magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika Sheikh Maxamed Cabdiraxmaan Abukar oo aan ku wareysanay xarunta iskuulka ee madrasada Umar Faaruq ee ku yaala magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waan kaga mahadcelinayaa waqtigiisa uu na siiyay iyo barnaamijka uu kaga warbixinayay xaaladda Soomaalida dalkan Koonfur Afrika ay wax ku bartaan aad iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa Sheikh Maxamed Cabdiraxmaan